السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا channel محمود عبد الله حسن maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Suudaan. Channelka subscribe si videoda like gare comment-na xagga hoose ku qor. Dalka Suudaan ama Republic of Sudan waa dal ku yaala waqooyi bari qaaradda Afrika. waqooyi waxa ka xideeya dalka Masar, waqooyi galbeedna waxa ka xideeya dalka Liibiya, galbeedna waxa ka xideeya dalka Chad, koonfur galbeedna waxa ka xideeya dalka South Sudan, koonfur barina waxa ka xideeya dalka Ethiopia, barina waxa ka xideeya dalka Eritrea iyo badda Cas. Cabirka dalka Suudaan waa 1,886,000 oo kiiloomitir oo square ah. dalka Suudaan waa dalka saddexaad ee ugu weyn qaaradda Afrika xagga cabirka. tirada dadweynaha ku nool dalka Suudaan sanadkii 2018 wuxuu ahaa 43 milyan oo qof. magaalada madaxda dalka Suudaan iyo caasimadeeda magaceedu waa Khartoum. xagga magaalada Khartoum labada webi ee loo yaqaan Nile ay ku kulmaan. diinta dadweynaha dalka Suudaan boqolkii 96 waa muslim. xagga dadweynaha dalkaasi ay haystaan madhabka suufida. xagga dadka kristanka aaminsan boqolkii 4 ay ka yihiin dalka Suudaan. luqadda dadweynaha dalka Suudaan ay ku hadlaan waa afka Carbeed. lacagta laga isticmaalo dalka Suudaan waxaa loo yaqaanaa pound Sudanese. madaxweynaha dalka Suudaan magaciisu waa Abdulfataax Burhaan. xagga ra'iisul wasaaraha magaciisu yahay Cabdallah Hamduuk. dalka Suudaan wuxuu ka goostay boqortooyadii loo yaqaanay Masar iyo Suudaan sanadkii 1955. dhaqaalaha dalka Suudaan waa mid meel dhexaad ah. dhaqaalaha dalka Suudaan wuxuu ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolo dhaqatada iyo macdanta iyo kalluumaysiga iyo soo saaridda shidaalka. xagga boqolkii 80 dadweynaha ku nool dalka Suudaan ay ka shaqeeyaan beeraha. waxbarashada dalka Suudaan aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay. xagga ay waxbarashadu ay tahay bilaash. boqolkii 60 dadweynaha ku nool dalka Suudaan waa aqoon-yahan. caafimaadka dalka Suudaan aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. xagga xukuumadda ama dowladda ay siiso dadweynaheeda caafimaad bilaash ah. xagga dalka Suudaan ay leeyahay dhakhaatiir iyo hosbitaalo fara badan. channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan wuxuu ku rajaynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh. يحيو حتى ضراد اللي يقيرو ضرورة كركودا بان ليقتو ماي طريقان كلابتنا قبيلي جعيلك يقصو الدقايو درسان نقني يحيو عددا دراد اللي يقيرو ضرورة كركودا دربان ليقتو ماي طريقان كلابتنا قبيلي جعيلك يقصو الدقايو درسان نقني middan daawadoo kale dunidaba ma joogtee. middan daawadoo kale dunidaba ma joogtee. meedada halbadaydi meedada halbadaydi meedada halbadaydi meedada halbadaydi مدادرت مانتا مداودا هلي مدادرت
maanta kuye ama daawada heli ama sadaalayo dhacay difir awada galay ama sadaalayo dhacay difir awada galay channelka subscribe si videoga like kare comment na xagga hoose ku qor